Subax wanaagsan, asalaamu calaykum, soo dhawaada. Waa qayb kale oo ka mid ah socdaalkii safarkaygii baaskiilka aan ku maray qaaradda Afrika. Saaki alxamdulilah waa soo nabad kacay wadadan aan ku socdo waad ujeedaa waa meel qurux badan doog leh waa dhulkii Rift Valley aan maray oo ugaar badan iyo bahalo badan oo ka soo cararay dhulkaas Sahara u ekaa kor inaga sii jiro waa sii mari doonaa dhulkaas maxaa la yiraahdaa xayawaanka oo dhan ay ka soo baxeen ayaan gali doonaa sida mapismi oo ii sheegayo tuulooyin badan aan sii mari doonaa meel xayawaanaad badan bahalo badan waan sii dalxiisi doonaa kolley ila jooga idinkana waad ku jirtaan dalxiiska qayb ayaad ka tihiin waad ila arki doontaan intaan anigu arko waanad ku mahadsantihiin daawasho wanaagsan isla socod wanaagsan marka xayawaankan aragtidiisu aad ayay muhiim u tahay waa kaas waa ka zebra ayaan u jeedaa waa dameer faro halkaa fadhiya dameer faro koox dhan waay shishadaasi koox kala joogto waa u jeedaa way soo fiirinaa way kaceen way dhaqaaqeen xoogaa horey u socdeen koox kala halkaa fadhido dameer faro halkaas kala boola ka muuqata laakiin ii kaada u soo noqona koox kaloo dameer faro halkaa ka muuqda meeshan wallahi meeshaan way caadiran tahay waanaad badan aan joogo dareenka dalxiiska cabsida iyo farxadda reynreynta markaad xayawaanaadka aragto waxaad dareemi karaa ninka kaliya meesha ay joogaan xayawaanaadkaas dhex jooga wallahi waa dareen aad u wanaagsan dad baa milaayiin ku bixiya anigana baaskiilkayga ku dhex maro alxamdulilah ilaahay bal ha igu ammaansan ila daawada alxamdulilah tuuladii yar aan soo marnay oo kasoo quraacnay hal mid aan idinka ilaawaa jirta safarka maanta kaligeed nin saaxiibka oo Burundi u dhashay oo Paruk la yiraahdo ayaa igu weliya laamigii aan kasoo raacnay tuuladii yarta halkaas oo nooga dhamaaday meeshaan wixii ka dambeeyay waxaa noo bilaaban doona in yar oo geedaha dabadeed waxaa noo bilaaban doona buuro yaraan naga xigo kadib waxaa noo bilaaban dhulkii Sahara u ekaa oo gabiibta ah dhulkaasaan noo bilaaban doono insha allahu tacaala ilaahay hana nabadgeeyo waa socon doonaa ani saaxiibkayga siduu ii sheegay asiga qorshihiisa maalmo ayaan isla sii socon doonaa ilaa iyo weekan marka kadibna laba wadaa kala qaadanaynaa asiga dhinacaasi Ethiopia u socdaa anigana dhinacan kala Kenya dhexdeeda inaan ku socdaa rabaa kadibna Tanzania u sii gudbo insha allah sidaan hore idinkugu sheegay dhulku waa dhul xayawaanaad badan halkaasi hadda waxaa iga muuqda maroodi oo rafaad badan ka muuqdo dhulka abaarta ka imaaday haddana inuu sii galaayo dhul doog leh halka anagu ka nimid u sii socdaa annagana waxaa u soconaa halku asiga ka imaaday asiga iyo kuwan goodirkan goodir ama baciid qof walba siduu u yaqaano kulay aniga sidaas aan u aqaan xayawaanaadka magacyadooda waa la iiga fiican yahay bal daroonka kicina waa arkaa bal dhulka sida uu yahay iyo wixii bahalo ku jiro kadibna hore u sii soconaynaa soo dhawaada daawasho wanaagsan dhulku waa dhulka noocaas oo saxaraha geeduhu ku yar yihiin waa mana waa kule waxa ugu weyn oo aan ka walwalayo waa biyo la'aanta allah sakhiru safarka
maskaxdeyda siday u wada istaagtay cabsida jirkeyga ka muuqata ma dareemi kartaan. halkaas waxaa iiga muuqda libaax, qaar libaax uu fadhiyo kusoo fiirinayo kaligaa aad tahay. balka war nasiib wanaag waxaa ah xayawaanaadkan dadku way yaqaanaan oo ma ugaarsadaan, ugaartaas kaliya cunaan. alxamdulilah. malaha waa mid dhergan, hadduu gaajaysan yahay dameer farowgaas ayuu ugaarsan lahaa, u eryan lahaa, u qabsan lahaa. aniga iyo dameer farowga nasiib wanaageena nooma baahna. cimiladu way isbedbedelaysaa, marna daruura isku gidaamaysa, marna qoraxdu way soo baxaysaa. marka waxaan go'aansaday meesha iigu soo horeyso inaan dego oon dadka weydiisto teendhadana dhigto. cimiladu ma wanaagsana, qoraxda daruura mar isku dadayso, mar qoraxdii waa soo baxaysaa. hadda 9 saac la maraya, ninkan odaga ayaa oo meesha garaash iyo beer iyo meel xayawaanaad lagu qalo, xoolaha lagu qalo leh, oo maxaa la yidhaahdaa, aan codsaday inaan meel aan teendhada dhigto inaan uu isiiyo, uuna ii ogolaaday. ninkan asiga xataa aad buu iisoo dhoway, asalkiisa waa Botswana kasoo jeedaa. meeshan wuxuu jooga 47 sano. beeruu ku leeyahay, meel xoolo lagu qaluu leeyahay, garaashuu leeyahay, xaasi caruuruu ku leeyahay. wadankan marti kuma tihid, sideedoo kale waa yeeli kartaa uu yidhi, kusoo dhawow beerahaygii waxayga kusoo tusaa, dhulkoo dhan kusoo wareejinaa insha allahu tacaala, meelaha seexatana waa ku siinaa, berina tartiibtaa safarkaaga hor usii wada, hadaa rabto maalmo badan waa ila joogi kartaa uu yidhi. ima dareensiinin inaan marti ahay. wuu isoo dhaweeyey, wanaag badan uu ii muujiyey. intaan caawa hoyanaa hadduu ilaa yiraa, berina safarkayga halkii ayaan kasii wadanaa. isla socod wanaagsan.
It's good. It's good.